wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan oo muddooyinkii u dambeeyay socdaal shaqo oo ku joogay dalka Malaysia ayaa ka warramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu halkaasi joogay iyo guulihii uu ka soo hooyay. aniga iyo wafdi aan ku jiro oo ay ka mid ahaayeen wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska, gudoomiyaha banka dhexe iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo khubaro kale. muddo isbuuca waxaanu safar shaqo ugu maqnayn dalka Malaysia. waa wadamada ku yaala koonfurta Asia, bariga koonfurta Asia da fog. waa wadamada imika dhaqaalahoodu soo korayo oo wadan islaam ah, muxuu ahaay alaabo badanina muxuu ahaay bay'ad mushtar badanina Somaliland uga yimaado, arday badan Somaliland ka joogto. safarka iyaga ujeedadiisu waxay ahayd sidii Somaliland iyo Malaysia xiriir dhaqaale iyo siyaasadeed muxuu ahaay looga abuuri lahaa, sidii Somaliland aynu uga iibgeyn lahayn muxuu ahaa khayraadka Somaliland ay leedahay, ariga muxuu ahaa goobta istiraatiijiyadda aynu ku naalo, sidii khayraadkeena guud ahaan aynu ugu iibgeyn lahayn wadankaas ayuu ahaa muxuu ahaa ujeedada socodkayagu. intii aanu joognay dalka Malaysia, aniga iyo wafdigii kale ee aan ka mid ka ahaaba waxaanu la kulannay madaxda dawladda Malaysia oo ay ku jiraan wasiiro, saraakiil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka. waxaanu la kulannay intii aanu joognay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Islaamka, maadaama gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland uu nala socday si uu dhigiisa ula kulmo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Islaamka sida ay u shaqeeyaan iyo muxuu ahaay xiriir halkaasina ay uga abuuri lahaayeen. intii aan halka joognay waxaan la kulannay urur la yiraahdo IFSB oo ah Islamic Financial boardka dhaqaalaha Islaamka. gudoomiyihiisaan isagana halka la kulannay. waxa kale oo la kulannay intii aan halka joognay jaamacadaha waaweyn ee dalka Malaysia. waxaan la kulannay ilaa 10 maalgashadayaasha ugu waaweyn ee dalka Malaysia. intii aan halka joognay waxa kale oo la kulannay saxaafadda muxuu ahaay ugu caansan ama ugu waaweyn dalka Malaysia oo ka warqabtaan inay daabacaado ay fiican ay ka qoreen Somaliland intii aanu halka joognay. geesta kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa jawaab adag ka bixiyay hadalka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo la xidhiidha siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland. siyaasadda Somaliland ee arrimaha dibadda markii ugu wanaagsanayd bay maraysaa. xisbiga wadanina marar badan gudoomiyaha arrimaha dibadduna muxuu ahaay way ka hadashay. gudoomiyuhuna hadduu ka hadlay anagu inta badan horta xisaabta mucaaradka uma jawaabna haddaan nahay wasaaradda arrimaha dibadda, waayo waxaan xambaarsannahay qadiyad qaran baan xambaarsannahay. laakiin waxaan qabnaa xisbiyada mucaaradku halkii ay muxuu ahaay waqti badan kaga lumin lahaayeen inay raadiyaan dhaliisha muxuu ahaay dawladda ama wasaaradda arrimaha dibadda noqoto ama wasaarad kale ha noqoto ama xukuumadda guud ahaan noqoto. waxa looga fadhiyaa inay la yimaadaan siyaasad muxuu ahaay bisil iyo waxa ay muxuu ahaay ay bedelayaan ay barnaamijka kan ka duwan xukuumaddu wada ay hayaan. xukuumadda kulmiye iyo dawladduba waxay ku hawlgalaysaa oo ay ku shaqeysaa muxuu ahaay qorshayaal qoran oo qorshe xisbi iyo qorshe xukuumadeed oo qoran bay ay ku hawlgashay oo ay ku shaqeysaa oo ay ku socotaa. xisbiga xisaabta mucaaradka dhaliil iyo cay iyo aflagaado intay waqti badan ay ku lumin lahaayeen waxay ila tahay inay waqti badan ku lumiyaan waxaanu wadno waxa dhaamo ee ay keenayaan inay mar kaliya ummadda u soo bandhigaan. taasa muxuu ahaay constructive mar kaliya ma arko xisaabta mucaaradka markay dhaliilayaan dawladda Somaliland ama wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo wax qodobaysan nagu dhaliilaya ama iyagoo waxaan wadno bedelkeedaanu qabanaynaa ma aragno. waxa weeyaan waa dhaliil aan muxuu ahaay aan loo meeldayn.